أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وقت مجدقة مدو ما أنت اللي تشوفه وحان سلام يا أون هل كان وسو جيدنا يا سلام يعني قلبك كسوق قضي يعني ننكستا أي مروج كله هنتهاي ummadda Soomaaliyeed ee cadawga godka la galay dawladda Mareykankuna albaabka u joogto si aan loogu gurman loona ogaan waxa lagu sameeyay hase yeeshee waxaan leeyahay Soomaaliyeed inkasta oo muddo 20 sano ka hor aan Soomaali uga sii digay una sheegay in amxaarku uu soo socdo asagoo ku socda balaan qarniyo ka hor u dhigtay dad iyo dadweyne iyo dawlad waa dhigaysan weydin nasiib darro 20 sano ka hor waxay siin lahayd waqti laga gaashaanto hase yeeshee inkastoo sidaa tahay waxaan leeyahay Soomaaliya ha isdiibin marraba ha isdiibin maxaa wacay sida tan inaga inagu dhacday inagu ugu muhurey ummado badan oo sideena oo kala iyo horteen soo maray way arag bay u noqotay markii ay ka baxeen cadawga iska dhiciyeenna qaybintii loogu soo hoos galay iyo isticmaalkii labadooda yaani daciifnimadooda la isticmaalay ilaah bay tartiisi tahay way ka koreen oo way arkeen oo waa ka weynaadeen sida awgeedna waxay dhisteen dawlado cusub oo u suuqiyay dalkooga iyo dadkooga iyo diintooda inay u eegan karaan una soo jeedi karaan habeen iyo maalin sida ku haboon marka waxaan leeyahay Soomaalina waa sidii oo kale waynu ka bixi doonaa waxaan isla markaa ka kori doonaa oo ka weynaan doonaa waxa allaala wixii keenay maanta halkaan joogno inaynu ku soo dhacno oo inagoo muxuu ahaa ummad mida oo sarreysa oo cadawga ka adag oo mar walba iska waabisa inagoo ahayn maanta in guryaheennii la inoogu soo galay iyadoo qaarkeen ay hogaaminayaan qaybihii qabaa'il aan isku qaybinay awgeed iyo dhageysi la'aantii aan dhageysan weynay inta wax garadka iyo diinteenni sida fiican inuu raaci weynaa shirki iyo qabiiltinimo ka raacnay bima qadamada idiikum wax oo dambiye aan soo galay iyo qalad aan soo galay bay natiijadeeda tahay tan hase yeeshee isdiibin maxaa wacay guusha iyo nolosha sidoo kitaabku iyo diintu inoogu sheegtay nabigeenu inoo sheegay sidoo ilaahayna yiri asagoon baa bixi wax walbana ajal bay leeyihiin qof iyo qaran hadday noqoto maanta inaynu soconno oo ilaahay xaqiisa ka go'an tahay wax kasta oo sameeyna way noo dhamaatay haddii kale wax kasta oo inagu sameeyaan waa ka noola waana ka kacayna haddii ilaahay ka dhigo oo taas ilaahay baa bixiya waxa kale oo farxad leh in muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed maanta ay ka soo go'day uurkeega inaysan marraba isdiibin gobonimadeediina la soo noqoto oo muxuu ahaa taasina ay ka muuqato dalka gudihiisii iyo dibaddaba ay ka muuqato waxa kale oo nasiib wanaaga in kasta oo ujeedada laga lahaa aanay taahayn maanta maliyoono Soomaaliyeed inay dibadaha ku nool yihiin kulligoodna ay wada sara kaceen diyaarna ay u yihiin sidii dalkoodii hooyo iyo dadkoodii ay ugu gurman lahaayeen isna soo habeynayaan ha ku diirsadaan kuwa guduhu hana isdiibina inta la soo habeynayo haddii ilaahay ka dhigo waxaa loogu talagalay kolka hore intoo dalka la gubo dadku inay ka qaxaan oo gelin laga dhigo intii ku hadhayna in la dhameeyo taas lagu jira laakiin waxba uma suura gali doonto waxa kale oo muxuu ahaa dagaalka aan u galayno inaan gobonimadeennii iyo dawladnimadeennii iyo dalkeennii la soo noqono iyo mustaqbalkeennii iyo aayaheena dambe dagaalka aan u galayno waxaa hubaala inaan ku guulaysanayno sababaa jira awgeed kuwa ugu horeeyay waxa weeyaan marka ugu horeysa 6 bilood ee iftiinka weynay ka soo shaacay xamar ee kaahiisii uu dalka wada qabtay ee lagu diirsaday laba shay baan adduunka u cadaynay haddii la moodayay qaska inayna Soomaali waxba tari karin oo inay tala yeelan karin waxaan muujinay in qaska iyo dhiigga qayraamaya Soomaali aanay wadin ee kuwa maanta dalkii qabsaday ee dadka leynay ay wadeen oo kolkii la joojiyay wixii oo dhan ee xeer la soo celiyay ee dawlad Soomaaliyeed dhalan lahayd ee dalku hagaagay ee la midoobay iyadoon ciidan loo baahan iyadoon dib u heshiisiin loo baahan iyadoon hubka dhig loo baahan oo dadkii walaaloobeen kuwii dumiyay ee ku soo duulay ee degdeg u baabi'iyay ee Mareykanku ugu horeeyo
ayaa ku danqabay dalku inuu qiiqo oo dhiigu qayraamo oo Soomaali heshiin weydo oo isqalato iyo maanta waa inaan ku qaadano ku waayaar qaadano marka waxaan proof gareynay inaynu arinteena xalilan karno muddo ka hor inaan xalin karno dhowr sano ka hor inuu anaga civil war naga dhamaado waxaan kaloo proof gareynay oo dib dambe ugu cadeyna umada amxaarka inaan ka adagnahay oo sida daayeerta mar walba eriyan iyaga iyo waxay wateen baan ka sifeynay dalka kana yaacayeen dalka haddii uusan Maraykanku oo dawladda weyna oo inaga itaal weyn uusan intuu galalooti u ridin qarankii Soomaaliyeed deetana horarkii amxaarka kale oo kor oo hadaba cun uusan oran mana joogi karaan imika Maraykanku hadduunu isagu muxuu ahaa siinayn protection haddaanu u duqeynayn diyaaradihiisa haddaanu u hayn maapka iyo meesha wax la marinayo haddaanu wax kasta siinayn marka cadawga ugu weyn kii aan naqaanay ma maanta ka ugu weyn waa Maraykanka weeyaan isaga la'aantii ma jirin kuwa dawladda oo waxbaa nahayriye ee malas u ku soo maleegay muxuu ahaa halka uu ku soo sameeyay ee wax allaala waxa maanta dhacayo oo dhan xaq inay yihiin ka dhigay ee u saxeexayna ummadda Soomaaliyeed mana matilaan magaceegana kulama hadli karaan waxna ma aha wayna ka abaal gudan doontaa maalinta ay gobonimadeeda la soo noqoto marka labadaas awgeed horta waa ku guuleysanay ta kale Soomaali oo dhan maanta waxay aragtay cadawga qura ee dhabtiihi inuu yahay mid amxaarkii inuu yahay kii aan weligiiba naqaan kan Maraykankuna ku dana kale ka fuushanayay inuu yahay oo ujeedo kale qaniimada iyo khayraadka buuxa ee ummadda ee Soomaaliya ay leedahay waxaas baa dawladdii horeynayay aad barna loo dumiyay dawladdii Cabdiqaasimna loo aqoonsan waayay wax tanna loo samaystay aan wax allaala waxay macna leedahay inay jirin ee daabkii midida lagu qalay ummadda Soomaaliyeed waa daabkii mididii lagu qalay ummadda Soomaaliyeed talabaad ilaah bay tiridiisii tahay waqtigu inoo shaqeynaya wuxuu u shaqeynayaa ninkii la dulmayo ee dagaalamaya ee dadaalayo u shaqeynaya ninkaasa ummadaha inta fiican ay la jiraan ninkaasu ilaahay la jira ninkaas waqtigu la jira marka inagu inoo shaqeynaya waxa kale oo jira inaynaan kali ku ahayn maanta sida loo joogo dulunka iyo weerarka sidoo kale ummado badan baa adduunka lagu hayaa sidoo kale u dagaalamayaan oo geesinimo ay sutida ugu hayaan oo maalin walba aad maqashaan oo qaarkood ku dhow yihiin inay guuleystaan oo iska soo eriyaan cadawgii dalkooda soo galay inaguna sidaasaan iskaga eri doonaa haddii ilaahay ka dhigo ee mar raba ha isdiibi waxaa kale oo jira maanta isbedel weyn inuu ka socdo adduunka oo ay dhici karto ceeyoon inuu ku soo janjeersamo waranku inuu ku janjeersamo kuwa laga seexan waaye ee ummaduhu ka seexan waayeen ee shakhsiyaadku ka seexan waayeen ee waxooga ay ammaan uga waayeen ee naftooda looganayay oo Maraykanku ugu horeey iyo inta la socota ee ku afgabaatay argagixisaan la dagaalamayna laakiin ninkii wadani ee ilaahiisa yaqaan ee dalkiisa jecel ee ummadiisa jecel ee dariiqa saxa socda ay cadow u yihiin kaasay yidhaahdeen waa argagixiso Soomaaliyana argagixiso wax la yahay ma jirin mana jirin waa wax la aftay shaabad dadka inta lagu dhifto la raba in lagu toogato kan shaabadeynaya qorigiina haysta kan doonay inuu ku dilaa labadiiba wata marka wax loo aqbalo ma jirto waan ognahay in argagixis dhulkeena jiro waan ognahay inayna wax sidaas iyo wax kale inay jirin laakiin waxa la doonayo oo la leenayo inay tahay wadaniinta dalkooda daafacaya ujeedaduna inay tahay dalka Soomaaliyeed in Soomaali laga tirtiro laakiin iyagu inamayna abuuri isbedelka weyn baa ka socda adduunka marka waa inaan adkaysano kaliina kuma nihin ugu dambayn waxaan leeyahay iskama lihi Soomaali waxaan leeyahay ku ducaysta nin walowba meesha joogto ilaahu biqudratika maanta nagu bixi adaan magan kuuna ilaahu biqudratika maanta nagu bixi adaan magan kuuna ilaahu biqudratika maanta nagu bixi adaan magan kuuna waan bixi doonaa waan guuleysan doonaa inta ilaahay u qoray baa tagi doonta inta kale way noolaan doontaa deetana tani waxay noqotay mid aynu ku fikirno oo ku walaaloono oo muxuu ahaa aan mid ku noqono oo cadawga meel uga soo wada jeesano abaabulka dibadda laga soo sameeyana sidaas weeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh